dhulka Puntland afar isku day ayaa laga sameeyay oo lagu burburiyay tahay ha ku ixtiraamo Puntland ay dad mutadayyin tahay almadow waa tii la soo fariistay oo gudaha loo soo dhacay ilaa karin leeyay yaa waday dadku wax baara Soomaalida madaxweyne xasan sheekh aragayaaba محمد سياد بروماندو waxaa soo cadow oo konton sano hadda in ku dhow aan ku soo jira hawla idinka sugayaan diyaar garow laakiin wali dadba waxay ku doodayaan koonfur xumo siyaasadeed ayaa Cabdullaahi Fikri reer Puntland xamar kaantay maxay ugu jawaabaysaa maxaa uu noolahay bay diiday Puntland waxa ku dhisantay talo ka soo baxday ururada SSDF SNDU iyo USB ayay ku dhisantay markii burburka muddo lagu jiray quusna markaa shirarkii Soomaaliya inay dib u heshiisiin iyo dib u dhis samaysa laga quustay ayaa Puntland markaa madaxdii waxay ku mitiday in marka balan inagu is dhisano oo aan dawlad dhisano ka bacdina aan Soomaalida raadino Maxamed Abshir Muuse ayaa markaa gudoomiyaha ahaa Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynayaashii wareegga ahaa oo maxaan ku raday soodare lagu soo dhisay isaguna waa hogaamiye u ahaa kaleeto wadajir baa lagu wada hogaaminayay SNDU waxaa hogaaminaya Cali Ismaaciil Cabdigiir USB waxaa hogaaminayay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Xaash ayaa hogaaminayay talada soo jeedinta hore markaa waxay ka timi ururkii SSDF baa markii aan dib habeen lagu sameeyay oo dib loo dhisay baa go'aankiisu wuxuu ahaa in aan bilowno awood ugu badan saarno in la dhiso dawlad Puntland la yiraahdo adu ajendayaasha Puntland iyo North East way jireen laakiin labada ajenda jiray North East la baxnaa mise Puntland ajendadeedii ayaa ku guuleysay marka in dawladda sidii loo dhiso Soomaalida ehelka ugu fiican wuxuu ahaa markii la kala qaxay oo dadkii la kala yaacay code labada dawladood dariska ah Ethiopia iyo Kenya halkaas dadkii saligu noqday loo qaxay la isku urursaday ay degeen oo qaxooto ku degeen ka bacdina waxa noloshoodii meesha lafteeda ka aasaasay iyo markii inta kadib waxbarasho ka helay labada waxbarashada waxa laga helay siiba Ethiopia waxbarasho laga helay Suudaan labada waxbarasho laga helay markii ay waxbarasho laga helay Kenya waxay noqotay meel weyn oo saldhiga dadkii dhaqaalaha lahaa intii carari kartay dadku wada cararine dadkii dhaqaalaha lahaa ama elite-ka ahaa ayaa tagay oo dariska ku gabaday maadaama Soomaaliya meel xabad ka dhacayso ay ahayd markii ugu dambeysay shirkii ugu ballaarnaa shirkii 96 ka dhacay 96 horaanteedii ka dhacay Ethiopia ayuu ahaa meesha soodara la yiraahdo ka dhacay halkaas heshiis kii ugu dhawaa oo Soomaaliya in lagu dhisay lagu gaaray oo markaa lagu heshiiyey siyaasiyiintii oo dhan la qanciyay in shan madaxweyne oo wareega rotation presidents oo wareega la sameeyo oo nimba uu haynaya bil uu haynaya xilka ilaa laga gaarayo fayska labaad oo shirkaasuna wuxuu ahaa in Boosaaso la yimaado oo Boosaaso madaxweynaha lagu doorto baarlamaankana lagu dhiso baarlamaanka in la dhiso wax kale oo harsanaa ma jirin markaas xaalad waa dhammayday in baarlamaanka lagu dhiso ka bacdina madaxweynaha la doorto ayaa harsanayd bay ahayd shirki qaban qaabadiisa marka waan galnay anagoo ku jirna oo teendadii weynada shirkana diyaarinay la soo diyaariyay ciidamadiina abaabulnay oo ciidankii shirka nabadgelyada ilaalin lahaa aan u diyaar yahay ayaa markaas shirkii Qaahiro la aado Qaahirna waa lagu soo kala tegay markii dambe ugu dambeyntii gabagabadii dalka Kenya ayaa muddo dheer waxa ka socday shir dooreed ka socday
مدبر كسودي الدورة هدو كسودي مركز دم شك ولا صور انبقات أي الله صور هذي وكين يجوده هذا وليس بدن بالصاري مدبر بالفريس ردال الفردي هذو مركز دم آخر وحل جارين برلمان كلا دسو برلمان كمركز لا دسو أنا مدح قدومي برلمان إيه مدحوينه للدورته مدحوينه مركز للدورته سو دولة دي رئيس الوزراء ودورته رئيس دولة السودس أنت أصبح انبقات يلقوا سوق دمية markii inta la soo dhameeyay waxa dhacday marka Soomaalida sida dhaqankeeda lagu yaqaan wax la looma dhama waa loo dhama cid kama maqnay laakiin iyadoo aan laba hawl gelin ayaa la kala qaybsama waxa kala qaybsanaya baarlamaankii gudoomiyaha baarlamaanka iyo dawladii gudoomiyaha baarlamaanka xamar buu ka degay markaas oo niman group ahaa oo ay markaas ku jaalahay xagga siyaasadda ayaan raalli laga ahayn cod baa lagu helay mooyaane calafkan u galay mooyaane waxaan aad raalli looga ahayn oo aan markaa xamar laga soo dhaweynay madaxweyne daarood inuu soo noqdo Abdullaahi iyadoo dowladda dhamaadkeeda daarood loo iday inay ahayd haddana in daarood soo noqdo baan dadka qaar ka dhaadhacsanay in badan oo ka mid ah marka waxay noqotay kala jabkii inuu kala qaybsamo oo markaa dawladdii ay haddii xamar laga aqbali waayay tiri xamar aysan degi karin markaas in ay jawhar degto oo markaa maxamed cumar xabeeb oo gobernatooraha jawhar ahaa markaa ajana isma xakumin isagaa meeshiisa ka ah madaxweyne oo dowladda ku martigeliyo marka hore baydhabo la weydiiyey baydhabo waa ka cudur daaratay inay xarunta kumeergaalka noqoto markii labaad maxamed cumar xabeeb ayaa dowladdii inuu martigeliyo diyaar u noqday dowladda jawhar bay degtay jawhar haddii muddo ay deganaydna heshiis baa dhacay shariif xasan iyo oo ah gudoomiyihii baarlamaanka oo markaas inta qaybta xalabka ka degtay baarlamaanka iyo wasiirada hogaaminayay inay dib heshiisiin la sameeyo dalka cadan baa lagu yaman baa lagu shiray cadan baa la soo heshiiyey heshiiska markaa wuxuu ahaa boynta ka noqday saldhiga in baydhabo dowladda ay tagto markaasaa waxaa loo wareegayaa baydhabo dowladda ayaa baydhabo loo wareegayaa halkaasaa marka qumaati loo degayaa kadibna baydhabo ayaa lagu diyaar garoobayaa markii la arkay inaan siyaasad midnimadii Soomaaliyeed aysan ku soo noqonayn iyo xiriir iyo afdabacsan inaan lagu gaarayn waxbaba dadkii markaa xamar ku noolaana oo Soomaaliyeedna uu iyaga khad u kala yaalo cagaaran oo aan qolada kale u gudbi karin markaa wadajirna aysan dowladnimadii u soo dhaweyn karin oo isku fikrad ahayn tafraaquna ay kala qaybsan yihiin halkaasaa marka lagu diyaar garoobay haddii lagu diyaar garoobay waana diyaar garowga waa la dhammaystirtay markii la dhammaystiray diyaar garowgiina markaasaa kabacdii tallaabada la qaado halkaasna ma hadda koowaad dad baa weli Soomaali sheeganaya oo madaxa qaba Ethiopia maxay u soo gashay dalka war Ethiopia haddaysan dalka soo gelin yaa khadka cagaarna dhaafi lahaa yay soo gudbi lahaa waxa ka bulshada rayidka la yiraahdo waxa ku xiran dowladda baa waxay rabeen dowladda Soomaaliya barnaamij ku baabaado si isaga joogto waqtigeeda inay barnaamij ku dhamaysatay rabeen marka goortii meel laga soo galo oo si kasta loo raadiyay oo kooxaha xaq jiri kacaan oo si kasta loo raadiyay in la afgarto oo shir isugu yimaado oo bal mar uun la gaaro wuxuun Soomaaliya heshiis ku tahay la gaaro oo dowladda ay xarunta ugu noqoto oo ay wax walba diideen oo iyagu weerar soo qaadeen oo weeraradii ay ku jabeen lagu jabiyay weeraradii lagu jabiyay meel kasta ay weerarka qaadeen ilaa baydhabo gaalkacyo maxaan ku radaa Kismaayo meel kastaba ay weerar ka qaadeen oo markii dambe baydhabo ay isku soo biyo shubteen weerarkoodii
weerarkaasi uu socon waayey ay jabeen markaas baa markaa dowladihii marka hore wax walba hortaagnaa oo u arkay marka xalka inay tahay in la gala mooye inaanay meesha dawo lahayn markaasay yaqiinsadeen markay saas yaqiinsadeen sidaas baa ciidanka Ethiopia marka ay ku soo galeen dowladda Puntland baa dhisatay kaalin hogaamineed bay ka qaadatay dowladda Soomaaliya la soo celiyo adeeg ka sheekaynaya laakiin weli dadba waxay ku doodayaan goro xumo siyaasadeed ayaa Cabdullaahi Fikri reer Puntland xamar kaantay ayaga ugu jawaabaysa kuwaas waxaan ugu jawaabayaa maxaa u noolahay bay diidan yihiin noloshooda inay nool yihiin bay diidan yihiin kuwaas waa kuwa hore aan u sheegay inay nool yihiin maanta xaraqoonayaan ganacsanayaan oo dalkooda xor yahay ayay diidayaan Cabdullaahi guri xumo siyaasadeed ma baa guri xumeynba nin intuu laga hor yimaado hadda ma la tago nin taga ma la arko iscasila oo siyaasi oo heer madaxweyne gaaray waxaa loo heli waayey oo dadkan u daneynayaan waa baxayaa yidhaahda Cabdullaahi ka soo koobay waqti fiican u haray dadkiisana markaas aan dhibaato ka haysan laakiin dhibaatada siyaasad dabadeed tahay uu iscasilo tegey haddii nin dambe uu iscasilo la helo waxaa la oran lahaa marka Cabdullaahi waxbaa ka jira laakiin maxaa ka jira yaa la hayaa hadda xilka waa la hayaa intaa waana la heshiifay waana la heshiis Soomaaliya waa la isu keeni layahay siyaasiyiintana waa heshiin laayay iyaga baa kala tegey balse waxaa la rabay dadka in la isu geeyaa la rabay siyaasiyiintii baa kala tegey waa hagaag waxaa kasoo wareegtay muddo hadda waxaa jira madaxweyne xasan sheekh baa dalka madaxweyne ka ah bal dib u milicso waxaa dhacay iyo majxad hagaya maanta waxa dhacay lama soo koobi karo wax la tirin kara maaha haddii la milicsadana waxyaabo badan ayay keenaysaa anigu waan soo urunaya waxaan ku soo urunaya hal eray baan ku soo urunaya halkaa eray wuxuu yahay xasan sheekh la arag yaabaa madaxweyne xasan sheekh la arag yaabaa maxamed siyaad barrow maandhow baan leeyahay ereygaasaan ku ururaya ka badin maayo intaas carabta waxay tiraahdaa idaa shufta xabash faranji xaaji taas miya maya waa ka duwanta idaa shufta faranji xabashi xaaji wey waa dadtahay waxaan ku weydiiyey maxaa kula dheer reer Puntland halgama dheer bay soo gashay halkan weli waa socdaa maxaa jiilka dhalinyarada ahay dhamme aad ka leedahay oday soo halgamay baa tahay 10 sano soo taagnaa marka xiriir way isbedelayaane jiilka cusub maxaa uga tegaysaa jiilka cusub iyo horta waxaan u mahadnaqayaa ragga saraakiisha oo howlgalka ku jira ilaa iyo muddo 8 bilood waxaan mar labaad nafteydana waa u mahadnaqayaayo inaan oday saldhig fiican ka tegey oo raggiisii wax wanaagsan qabteen intii uu soo barbaariyey intay soo barbaariyeenba oo dalkooda iyo diintooda dadkooda difaaceen baan ugu mahadnaqaya iyaga baan anigu nafteyda anigu u mahadnaqaya inaan raad fiican ka tegey oo raadkii saraakiishii iyo intaa ila soo shaqaynayay ee maanta meel walba hanteen oo guulo fiican ay ka gaareen hanasho ka soko baan ugu mahadnaqaya ilaaha guusha gaarsiiya baana mahadle jilka soo koraya dhulkan reer Puntland horta weligii ilaahay waxaan ahayn laguma caabudin dadka diin sheeganayo oo diin baan dadka barayna xoreynayna diinta waa la baran karaa waa fududa meel walba malcaamad iyo masaajid baa ka furan bal dadka diin sheeganayo marka dhulka soo hasa mar walba soo weeraraya masaajidda aadankii wax ka dhimanaysan jirin inta tabar aqoonta dadka dhammaystiran tahay dadka waa ku jihaadaynaa lahu xaggee cuskateen anigu inay naafo cuskane koox muqayila oo cabtow ah oo intay isuqsadeen indhaha korma jiray oo markay indhaha korma jireen xaggee dhaqaale ka helnaa iyo xaggee dal iyo dad ka qabsanaa isiiri ayaan anigu u arka oo markaa yidhi aynu dadka dhulkaas aynu qabsanno أنا ضفت قاليسينه إلا سين أقص حنا حوله هذا وقال إنه دمر كودا لو جوسن وقال إنه ده مقع عن بحن مركا ساس مقع عصال ومقع سيد عقل السعودة ضدك بنتو لأنها أوجادين هرت مركا هر أمير بسيطي أمير كهبين كوا ومركو حشيش عبي وخلاو أمير خلاو وكجريان لو أنا خرب عبية
amuurka khilaafu ku jiraa wala leeyahay baasha goortu ka dhergo وهذا كسر بحر وقائمة ما لتضم أنا أقول لك الأول اللي كنت قلت هو أنت عاجز كي وبهالشيء اللي ولا قدر يمكن ذات كان يسوق لي علماء الشيخان يا وح هي إلهي كسكون موجود إنك كسران إلهي كعب صنعي هكو احترامه قلت لأن يدد متدين هاي جيلك عصوب وحن ليه وحاسب عدو وأنه كنت صنع هذا إن كله أنا كسو جراه والله إذا كي السوق يعني ديار جروب كو هذا دقال كوتشرة odayaal badan baa ku jira niba maalin uu baxayo anagu dagaaladii hadda maryaha ka soo ma gelina waayo dee qofku aan xisaabtan waana xanuunsanaa umar waa xanuunsanaa ay kama fogaadeen tala iyo tusaale waxaan bixin karo marka labaad dee waa la wada gaboobaya dad baa ragga maanta jilkii anaga naga dambeeyey aniga iyo raggii ila mid ahaa iyo nafteeda weliba anaa ugu dambeeyey raggii ila mid ahaa ay ka tageen iyo anigu aan ka tagnay oo barbaarinay هذا الجوج ما أنت دفاع إلهي بعد دفاعي كبعد يجا دفاعي هذا يجا حلك هي أخو قرب سير قلت هريديننا جيلك دحال لها مرك كواس دولكينا أفر إسكو ضي على قسم دولك بنتلان أفر إسكو ضي هي على قسم لو بربرية تاعي أفر تا إسكو ضي سقاشن اللي بدي أقول هرش يا سؤال ولا حاجة ولا قصة ولا سؤال أوجيه آخر صوري مجرى الاتحاد حقيقة laga soo abaabulay xagee ka jiray yaa soo abaabulay wali dadkii qaar baa dhaqan soo abaabulay waxa kan mid kale cid gashaa si uga saafin noqota way aragtay inkastoo dudur iyo dabaal galo doo far abidkii ma daahiro waxa yiraahdaa jira dadkii qaalibiga ahaayeen dad badan oo wanaagsan oo hawlaha ku jirin way jiraan laakiin in mara ku dhaga ayaa ka soo baxday mara ku dhaga baa ka soo baxday markuu dhagi riyadii waagi bay weli raadinayaan riyadii waagi ay raadinayaan maanta bay weli bay ku maqan yihiin oo ku alxaman waa intii yaryarayd waagi intii waaweyneed waa ka rooyin xooga intii yaryarayd oo indhaha ku kala qaaday waxba noqonaysa wixii weeyo weeraxday weli siibay ku hameeyaan markii ku xigay waxay ahayd waxaan ku raadayna haddana habeelood baa dadka loo abaabulay habeelad baa loo abaabulay hebel baa ka maqan yahay dagaal iska horimaadkiisa iyo dhibaatadiisa wata ayaa dhacay waa laga heshiiyey laakiin meesha ay ka soo jeedo waan garanaynaa arrinta habeeleedkaas la abaabulay markii ku xigay oo haddana waxaan ku raaday garacad bee bal maamul dhisan waxaan anagu aaminsanahay markaa maamulkii markaa jiray oo xagga ka jiray inaanay ka marnay waa dhici karta inaan moodnay anagu iska moodnay waa dhici karta laakiin kama marnay baan aaminsanahay midda ugu dambaysa waa hadda waxtar may waxay naga tareen ma jirto bal waxa baan tuhunsannahay anagu dimo aanan sii raacinba waayo ciidan waa hayeen ciidan waa kaga qayb geli kareen سياسات واهية تاكلين واهية من نمطر مدنا حسن شيخ بتقدر كم يا نمطر حسن بعمر بلاي من نمطر هو نمطر وإلهي بقى عن تاغير لكن تاغير أنقوين وإلهي بقى هيسن إلهي تيسن نقول تاغير يسوت يا جرماري قرا يسوت يا جرمار انت قال كعيو بيلها دقن دعاء الله يسكت درو وهو يسوق ديبه waagi heshiiskii kadib imise goor bay dhacday ugu yaraan 4-5 goor bay dhacday markii beeliyagii baa si miyir qabta ayaa wada hadlay war waxa kan yaan la isku keen dhameeyay nabadeena iyo sharafteena aan sugan kii ku xigeen waa ka hadda waa kii buuraha calmadow baa ka horeeyay wala soo abaabulay waxa soo dhan meel baa laga soo diraa calmadow waa tii la soo fariistay oo gudaha loo soo dhacay ilaa karin leeyay yaa waday bal dadku wax baaraha baareen Soomaalida inaga waxay isxasteen oo aan hebel baad nimanku ahaayeen waxba ay raadin ama yaan wax la garan aan lahayn ilaahay dartiisa Soomaalnimo ay tahay ilaa noloshaadu waa noloshayda anigu qofka Soomaaliga noloshiisu inay taabaan misana noloshayduna waa tiisa tayduna waa tiisa
waxaa Puntland marka loogu soo noqnoqonaya Puntland waxa loogu soo noqnoqonaya waa meesha khayraadkeedu dihin yahay aan wali cid rasmi iman weeye waxaas in meesha la sii ceshado oo meesha la sii joogo oo u sii xiraato inta laga imanayo ayaa la doonaya dadkeedana banaanka loo tuuro idinka hadii la idinku anaga hadaan idinku soo sinay aniga ragga iga horeeyay ragga iga dameeyay hadda jilkii labaad baa shaqaynayee yaa hadii la idinku soo simay deecshada adkaysta mustaqbalka idinka ayaa iskale wiil gabar oday dhalinyaro kullu mutacallim dhulka hala ilaashado hala iska ilaawo waxa kan wahanka hebel baa saati hebel baa caanka hebel waxa kale hala iska ilaawo waxa kale masaajidka ciyaarta laga daayay wey ما شاء الله